waxaan ka bilaabayaa in annaga Soomaalida ah iyo biyahan ka bilaabaya meelsha ka bilaabay annaga Soomaalida ah waxaynu nahay horsideeda saddex shaqo baa muhiim inoo ah shaqo waa shaqada beeralayda shaqona waa shaqada kalluumaysatada shaqona waa shaqada xoolo dhaqatada saddexdaas shaqo dadka ka shaqeysta duruufo kala duwan oo aad u kala fog bay ku kala nool yihiin qoloba nolosheedu waxbay ku tiirsan tahay deegaamada ay kala yaaliin biyuhu siday ku yihiinna waa ku kala duwanaanayaan maalan haddaan ugu hormaro beeralaydu markii horeba ilaahay wuxuu ku beegay deegaamo webiyaal iyo biyo soconaya leh baa ilaahay ku beegay waayo hadda beeruhu biyo soconayo joogta ah bay u baahan yihiin wixii ilaahay cirka ka siiyana dadkay la wadaagaan beeralaydu marka biyahaas oo beeraha ay ku beeranayso oo kaliya maaha khudaartiba hadda meeshii ku jira waxaa ku jira biyihii waxaa ku jira lo'dii u qoob xiran waxaa ku jira caanihii waxaa ku jira cuntadii oo u badan cunto nadiif oo ah badar iyo digir iyo wax la mid ah oo waxa la beertay iyagu ay beertaan ah ee aan ahayn wax annagu aanu cunno beeralaydu waxay ku jirtaa sektarada Soomaalida ee wax laga qoray dawladihii Soomaaliya wax ka qoreen walow aysan wax buuran ahayn laakiin kulliba caafimaadka waxa la oran jiray mar walba beeralay maxay caan ku tahay kanaaca caan ku tahay kanaaco caan ku tahay qofkii ka soo shaqeeyay deegaamadaas ama u tagay cilmi baaris oo soo arkay baa garan kara xanuun waxa jira leeyahay walad oo ku dhaca caruurta waxa weeye markii kanaacadu ay ku dhacdo kanaacadu dil weydo daawada uu sahlina iska noolaado beerka iyo beeryarada baa bararaya koonfur waxa laga yiraahdaa waladi baa laga yiraahdaa ilmahaas deegaamadaas 47 sano ka hor qofkii tagay ilmaha waladiga qaba waxay ahayn caan bay ahayn muuqaalkooda caan buu ahaa muuqaal runtii argagax leh oo la jeclayn buu ahaa beeralay xarunkeedu waagaas waxa kale dadka la wadaagto kaneeco ilaa kaneeco meel biyaaliin bay ku nooshahay beeralaydu waxay haystaan ganacsi fiican waxay haystaan badeeco ay ganacsi fiican ka sameeyaan oo dhaqaale fiican ay ka heli karaan haddii ay ka nabad galaan influensiga dawladaha iyo sharikaadka iyo dadka macaash doonka ah oo aan u ogoleen inay wax ka qaataan mooyaan aan u ogoleen inay wax fiican ku celiyaan ilaa iyo intii dawladda Soomaaliya ay dhalatay beeralay wax gaar ah oo la siiyay oo lagu celiyay ma jirin laakiin khudaartooda un baa la guranayay marna magac iskaashatooyin baa lagu guranayay iyaga iyo kuwa badarka beeraha waxyaalaha kala beeraha marna magacyo kale oo shirkadaha lagu beeranayay waxyaalaha beeraha fududeeyay in la qoto traktarada iyo cagafyada iyo waxyaalahaas iyo ma aysan heli jirin ilaa waa dambe laga soo gaaray oo abaartii dabadheer 1974 halkan waa tii dadkii laga rarayo diyaarado Antonov ay ku rareen dawladda Ruushka waa tii ku raray marka xilliga dadka halka la dejiyay dadkaas in beerihii la baro in kalluumaysigii la baro bay noqotay xilligaas waxa la geeyay marka wuxuu qalab ah oo ka saaciida xagga beeraha halkaas waa beeralay waxay haysataa biyo falti ah iyo kanaaco labadaas haysataa beeralay waa taas kalluumaysatada waagi hore waxa la oran jiray iyaga waagi hore la oran jiray jaaji baa la oran jiray يعني لما أقوم بإنه يهين sector important oo dhaqaalaha wadanka muhiimka ah inay yihiin laba aqoon dawladihii waxa gumeystana ma rabin inay nooleeyaan sektoraha maaragtay kalluumaysiga oo dhaqaalaha wadanka wax badan ku soo kordhin kara ma aysan rabin inay nooleeyaan kaliya waxay nooga dhigeen arrin waa haysataan anaguna beerihii mooskarnaga ka qaadanayeen biyihiisanaga ka qaadanayeen sektorka ugu weynaa oo 3300 oo kiiloomitir oo ah xeebta Soomaaliya inta dheer leegta way ugu dheer tahay xeebaha Afrika ay ugu dheer tahay 80 sano isticmaalku meelaha wareegahayay lagama faa'iideysan wixii isagu ka helay mooyaane lagama faa'iideysan kalluumaysato sida beeralayda kaleeto waa deegaan waa degan yihiin beeralaydu inka beeralayda wuxuu degan yahay deegaankii
وكده حلي أوجي أبكي وكده حلي ولي دقيق هو الدجاج كلوا ما يستطيعوا وعلمت كما فوق بيرليه يجون sidoo kaleeto waa deegaan ninku wax soo kalluumaysto laakiin deegaan waxa jira iyo badan uu ka dhaxlay oo ku shaqeeyo baa jira iyaguna waa deegaan waxaanuna ka qoran laba hayo waxaan u maleynayaa haraad iyo xanuunkooda baan u maleynayaa waagaas dhulka biirood buu ahaa waxa ugu daran oo dadka muuqaalkiisa wax ka bedeli jiray wuxuu ahaan jiray haraad buu ahaan jiray cudurkoodu inuu haraad ahaa baan u maleynayaa laakiin waxba kama qornaa nimanka la xoolo dhaqato oo dhaqato nimanka la yiraahdo waa nin daruur ceyrsanaya isaga iyo daruur hortay oo soo dhan deegaan ma laha meel uu jooga ma laha meeshii ay hogashaasi ka horto xoolihiisa iyo ilmihiisa la aadaya dhibaatooyin fara badanna waa ku maraa mararka qaarkoodna xuduudo badan oo wadamo kala buu isaga gudbaa dagaallo ku galaa oo ku dhibaatooda haddana mid kale uu guuraa waa ninaan joogsan oo aan istaagin oo ilaahay uu socdo ordahay biyo raadinaya mooyaan aan shaqo kala hayn maxaa uu ahaa biyo xagga dhaqan ahaan maxaa biyo u ahaa dadkaas ee xoolo dhaqatada ceelasha aad maqasheen oo walwaalii wareeri kuwa la midka oo gacanta lagu qoray ceelashii la oran jiray ceelka halkaa ku yaala hebel la yiraahdo waa maawil la oran jiray ayaa biyo u ahaa iyaga iyo xoolahoodaba ama doog ha ahaato ama abaar ha ahaato koo waxay kaleeto lixdamaadkii waxaa la bartay baraaga in loqotaa la bartay sidoo baraaguhu ay saameeyeen deegaanka ay saameeyeen oo xaaluf ay dhaleen haddana waxa weeye waa lagu faa'iiday oo xilliga jiilaalka baraagaha waa loo baxsan dadku ha cabo ama xooluhu ha cabeen xoolo dhaqato xanuunkeedu waa qaaxo waxa ka qoran qaaxo weeye waayo dee cuntadii cunaan baa yar intay socdaanna waa ay badan tahay haddii aan markiiba ku soo hormaro biyaha iyo caafimaadka intii laga fahmi karo baan isri bal ka qaado waa wax ciida ka badan qodobadu laakiin dhowr iyo toban baan ka soo qaato waxaan isri intaasaa dadka isla garan kartaa biyuhu waxay qaadaan oksijiinka markooda horena ragga ardayda ahaan jiray waxay ka waxaysan yihiin hal atom oo hydrogen iyo laba atom oo ah oxygen marka H2O weeye laba hydrogen iyo hal oxygen waa marka already samaysinkooda beelahay wuxuu ka dhigay inuu already oxygen ku jiro qaaditaanka oxygen-kuna waa shaqada biyaha weeye biyuhu haddii markay jirka galaan haddii cidla tegi maayaan keligooda waxay ku lamayaan oo raacayaan ama cuntada ka shaqeeyeen ama dhiigga ha raaceen ama shaqooyin kale ha qabteen meel gaar oo istaagayaan ma jirto labo waxay yareeyaan culayska saaran kaliyaha iyo beerka anigu muddo badan baan dad qalayay waxaan arki jiray dad beerkooda beer qolofuul ma maqli jireen dad jirro qaba beer qolofuul yahda xanuunsan dadka dhalinyarada badankoodu beerkoodu beer dhalaalaya markii caloosha la furo ma ahaan jirin badankooda dhalinyaradaas qayisho iska soo jeedo habadu isaga dhacaysa ayagu wax dilayaba la dilahayo marka beerkoodu beer qalalan exactly beer qalalan waa beer qolofowga maxaan ku raadaan jirada hoose cirrhosis-ka ka yimaada dhakhaatiirta fahmaya ama ka yimaada chronic alcoholism-ka ma aha ma gaarsiisana oo gaatira ma laha laakiin waxaa ka maqan shining effect waxaa ka maqan dhalaalkii baa ka maqan beerka la yeesho taasna waxay ku imaan lahayd jirkiisa oo biyaha uu baahan yahay ay ku jiraan mana ku jiraan biyuhu waxay burburiyaan nafaqada haatan haddaad cunto waxay u badantay inaad biyo u baahan tahay haddii aad markaa u baahnayna hadhowto waa dareemaysaa cuntadii inaysan shaqaynin ama waa ku dhibaysaa qasab waxaa ah inaad biyo cabto biyahaasaa fududaynaya cuntadu inay shiidanto oo laga shaqeeyo macdanta jirka ku jidha sidoo kaleeto biyuhu way firdhiyaan oo way qaybiyaan oo waa qaadaan oo meel walba waa geeyaan meel walba kamiyad ay qaadi karaan ayay geeyaan waxay sahlaan hurdada taas waxaa garan kara dadka biyaha cabba baa garan karaya anigu waxaan dadka ku yiraahdaa bukaanka afar waxyaalood qofkii rabow dhakhtar ha aadin hal wax samee hurdo ma rabtaa biyo cab caloosh inay ku socoto ma rabtaa biyo cab
oogadu inaysan ku xanuuno ooga xanuunkii jir xanuunkii inay kaa baan siba dadka deewaaweyn inay kaa baan ma rabtaa jirkaagu biyo badan ha barto waxa afreeya ma rabtaa inaad gaajootid oo cunto aad u baahatid biyo cab afartaa waxyaalood ogaada biyaha haya dhakhtarku ma hayo daawada ha uga soo dooranina dhakhtarku calooshaada daawo ku socodsiiya waa haya waa sun dhakhtarku daawo uu kugu siiyo abataadkay fudhaa la yidhaahdo sun la saaray ah iyaduna way jidhaa haddaad rabto hurdo waa darooga waxa lagu siinayaa haddaad cunto rabto sidoo kale bimacnaa adigoo heli kara inaad biyo keemiyad ku filan jirkaaga iyo caafimaadkaaga inaad cabtid dhakhtar inaad u aadid caloosha ay fadhida iyo cuntadii baan cuni waayey iyo jirka ay gubanayaan iyo haddii alla idmaayo waxyaalahaasna u aadid ma habboona ogaada waxaa idinkaga filan biyaha intaas dhakhtar ha u aadinina waxay jilciyaan caloosha waa talaalkaana ku taallaa calooshay jilciyaan dadka hadda qaba chronic constipationka qaba oo calooshooda aysan waxba ka imaanin bal maalintii jaabi anugu biyaha ugu fiican oo hadda aan caashaqsanahay mid u caashaqsan yahay waa biyaha tuubada baan aad u cabbaa waana ka nadiifsan yihiin kuwan kaloo haddeen hor yaalla waana ka nadiifsan yihiin xoogaa TDS-ka oo ah total dissolved saltska yacni milix macdan intee baa ku jidha tiro waxaa jidha la rabaa mid walba inay biyaha kaga jiraan la cabbayo xoogaa way ka badan yihiin haddeertaan maalin luuta nin baa masaajid ka sheekaynayo oo si qurux badan aad u qurux badan u sharxayo waxay yareeyaan qandhada iyo jir xanuunka waxay ka hortagaan in dhagax samaysmo innaga waayahan dambe aad baa waxaa noogu badanayaa xanuunadan keliyaha especially dadka waaweyn dadka hadda miyiga jooga qof haysta kelidii originaalka ahayd oo mataqaanaa uu lahaa haystaa ma jiro xataa dadkii magaalada jooga badankooda waayo biyola'aan iyo haraad kelida u dhimanaysaa biyola'aan iyo haraadkaasna waxay keenaysaa biyihii meesha marayay inay kala hadho wixii ciid iyo dhagax iyo macdan iyo ku jidhay oo ay aruuriso bay keenaysaa gadaal baa ka soo sheegi doonaa waxay ka hortagaan caabuqa iyo infectionka xanuunadan haddaanu ka qaadanno markii caabuq hadda nabar meel naga gaaro oo meeshu intana bararto aanu dhahno war daawo dhakhtarka aanu doonanno marar badan dadka ilbaxa waxaa kaga filan biyaha kaga filan biyaha keliya kaga filan oo in fiican uu ka cabo waxay yareeyaan fursadaha uu ku imaan karo dhiigkarku siyaabo fara badan buu u yimaadaa mar wuxuu ku yimaadaa da' buu ku yimaadaa waa dee kullaba aad sii weynaataba waxaa weeye xididadii awal xoogga badnaayo intaa leekaa markaad sii weynaataba waa sii yaraanayaan marka waxaaba iska jira dhiigkar ku imaanaya da'da ku imaanaya ama marka horeba basical aan jirraba aan ahayn waxay sameeyaan caliyada afkeenna ku jidha biyaha sameeya iyo dheecaamada kaleba ee qurxiyaan caafimaadka jirka dadka biyaha cabba jirkooda markaad fiirisid dad kale waa ka qurux badan yihiin waxaa idiin sheegayaa arrin yaab leh dadka reer koonfurta guryaha dhisa aniga weligay hal qof oo xanuunsanoo jirra qaba ma qiyaasi kartaa hal qof oo xanuunsan dumar way dhici kartaa rag ah ima imaan welito laakiin inay iyagu isdilaan ama inay maaragtay waxyaalaha noocaasa mooyaane xanuunadan dadka noogu yimaado weligay uguma imaan dhaqankooda waa biyo calooley iyo badar subax haddaad fiirsaan aroortooda marka la tukado halkaan waxay maraan kuwa guryaha dhisaa iyagoo wata caga toddobaqaada meeshuu ka shaqaynayo ka dhaansanaya shanta galabnimo halkaa wuxuu maraya iyadoo faaruqaba halkaan maraya hooga yaro badara u yaalla intaasuu cunaya qofka caafimaad badana ma jiro caafimaadka biyahaas aynu diidnay buu ku haystaa cisbitaal ma yimaado ninka guryaha inoo dhisaa waxay hagaajiyaan qurxiyaan caafimaadka jirka waxay barkin ama bafar u yihiin maskaxda waa arrin kaleeto hadhowto gadaal aan ka sheegi doono khataro badan keentay markii biyihii la diiday maskaxdu iyo laftu iskuma yaalliin waxa u dhexeeya qoyaan biyo qoyaana u dhexeeya oo hadda markii madaxaaga asaas tiraahdo waad dareemaysaa maskaxdaadu inay ruxanayso hadday lafta ku dheggan tahay waa dilaaci lahay
biyahaasaa ka celinaya markii ay saa u ruuxata ka celinahaya inaysan gidaarka taaban ka celinahaya waa arrin kaleeto iyaduna caafimaad darro weyn ay ka timid markii biyihii la diiday taa keliyaha iyo taa maskaxda waan ku noqon doonaa waxay ilaaliyaan waxay hagaajiyaan caafimaadka xididada dhiigga hadda jirka dhacaan kastoo ku jira dii hadda la yidhaahdo bini aadamku markii la miisaamo 3 meelood 2 meelood waxa weeye waa dareere weeye biyaha orane dareerahaas asaaska waxa saldhigga oo waa biyaha dad jirka biyo ku jira ma dhaca ma shaqeynaya marka waxay hagaajiyaan caafimaadka xididada hagaajiyaan markii ay quanti fiican jirka ku galaan waxaanu aragnaa annagu waxyaalaha yaabka leh waxaad arkaysaa qof dhiiga laga qaaday oo xinjirowgiisii uu ka badan yahay 1200 1300 uu ka badan yahay meeshii laga rabay 350,000 inuu noqdo waa horan arki jiray iyagoo ah muwaadiniin baan waa arkay ah 1 milyan iyo 250,000 xinjirow ah baan reer miyiga ku arko caafimaad qaba oo xabad cudurra qabin wixii ugu yimid xanuunkan galuhii ugu yimid kadib ninkii dib baan u baaray aniga shaybaarkii rayaan halka la oran jiray dib baan u baaray markasta waa intii way tirado biyo ma cabtaa may biyo ma cabuu yiri haddaan helo markaan shaahi cabo ama tukanahay inuu weesaysanayo inaan marinaan qorjo ka siiyo maahe biyo ma cabo waxaanu ku dhiiray war sidaan hadda aad tahay waxaa dhici karaa dhiiggan xijirtiisu ay maraso halka milyan 500 oo laga rabay 350 waxaaba dhici karta inuu sameeyo xinjiro googo inuu sameeyo oo halbulaasha maskaxda xira oo kuwa wadnaha xira oo kuwa sanbabka xira sidaas aqooliga ahaawi sheeka haysaa lagu yiri waxay ilaaliyaan badqabka xubnaha muhiimka waa inta uu ku jirtada iyo maskaxda weeye inta uu ku jirtada iyo inta saableed Ilaahay ku ilaaliyay intaas way inta muhiimka ah wadnaha haato ama sanbab beer yaro xameyti kaliyo kaada hays gana inta gudaha ku jira weeye iyo maskaxda intaas way inta biyo ay xoogga u ilaaliyaan oo ay la shaqeeyaan dheefshiidka oo ku shaqeeya biyaha daataan soo maray isaga inaad cunto ka dheregto iyo biyana aadan cabin inaysan dhacaynin haddii tii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ahayd caloosha 3 meelood meel hawadaada meel biyahaaga meel cuntadaada waxaan taabanayaa waxa la fuuqbaxa qofku markuu fuuqbaxo muxuu halis u galaa halista u horeysa uu galaya waxa la shock waxa waaye pressureki dhiig oo dhan baa tagaya 128 dadku yiraahdaa meelahaas buuda wuxuu noqonayaa 40 buu noqonayaa 20 buu noqonayaa already shock buu ku jiraa miirkiisa uu tagay wuxuu la tagayaa fuuqbaxu wuxuu la tagayaa maxaa tagayaa biyihii baa tagaya jirka biyihii baa ka baxaya biyihii markay baxaanna qofku ma noolaan karo inta yartaada ku jidha markay u baxdo shuban ama matag waa arrin emergency hadduu qofku kooma galo ay adag tahay in degdeg in loo soo celiyo ay adag tahay marka annagu waxaanu qabnaa fuuqbax chronic-aanu qabnaa kii degdegtaayo qofku 2 maalmood shumahay ma aha laakiin biyo la'aan joogto ah oo ilaa iyo waagii aanu dhalanay ilaa ay had yartaan aynu haddaynu magaalo joogno iyo haddaynu miyi joogno aynu isaga mid nahay biyaha aynu isaga mid nahay waxbaan ka tijaabiyayoo dadkii magaalada joogaar haddaan weydiiyey maalintii biyo intee cabta ninkii ugu rora 2 galaas baa cabay buu yiri haddii ninkii reer miyiga hadduu biyo helo 2 galaas waa cabi karaa hadduu maalintaa biyo helo 2 galaas waa cabi karaa waxaanu fiirinaynaa marka calaamaadka ka imaan kara mataqaanaa marka fuuqbaxaas yimaado haraad daran baa imaanaya qofka waxa way afku waa qalalaya bushuhu waa qalalaya dhuntu waa qalalaya jirku waa qalalaya wax walba waa qalalaya kaadidu waxay noqonaysaa wax yar oo gaduudan oo ur leh bay noqonaysaa kaadi ka yar 2 ilaa 4 maalintii kaadi ka yar buu dhigayaa kaadidaas waa gaduud urra waa leedahay oonka raaga isagu muxuu keenaa oonka raaga fuuqbixi maaha laakiin waa oon raagay weeye kaliya xanuun iyo kaliyaha oo miisaankoodu yaraado shaqadooduna yaraato dhagaxna sameeyo intaasay isku daraan kaliyuhu markii ay biyo waayaan intaasoo xeelooda isku daraan
xamaytudu dhagax waa sameynaysaa kaadahaystu waa sameynaysaa keliyuhu waa sameynayaan xamilka iyo qaadka kaadahaysta oo yaraada taas waxaa fiicnaan lahayd in cashar kale ay noqoto sababto waxa weeye hadda markii kaadahaysta kaadi galayso intaan bay leeg tahay ilaahay wuxuu awood u siiyey inay kala baxdo oo markii kaadi gashaba ay ka durugto hargaha neerbayaasha gudaheeda ku samaysan oo saa isugu jira markay la sii kala baxaan meel markay gaaraan kala baxaasi bay fariin waxay u dirayaan maskaxda waxay leeyihiin hantii waa buuxdaaye ee amarkii lagu faaruqin lahaa la soo diro weliga adoo kaajiya xanuun ma dareenta raaxa mooyaane maya raaxaa dareemaysa maca daalika haddii lagu tuso adoo kaajiya kaadahaystaadu siday leedahay haddii lagu tuso uma qaadanaysid kaadahaystaada saa u farganaysa uma qaadanaysid macnaa maskaxdu waxay soo diraysaa koronto ku filan waxaas in la saaro kaadahaystuna waxay diraysaa meesha waxa ku jira biyaa ku jira intaasa oo waliba compositionka biyo waxa meesha ku jira sheegaysa intaasoo phosphate intaasoo magnesium intaasoo chlorine intaasoo sodium bay ka samaysan wax meesha ku jira waana kaadi waxa weheliya waxaan aqoon iyaguna meesha fadhiya waa dhagaxaas cabirkiisa dabka neerbaha kaadahaystu waa diraya kor buu diraya waxaas waa aqoon cabirkaas leena waa ku jira isagana waxaan rabnaa inaan u soo didhaan dab ku filan lagu saaro in tagayo baxayana ma nabarun baa ka imaanaya maqaarka iyo qaleylka oo qaleyl noqda markii uu yimaado mataqaanaa oonka raaga qofka cuntada ku jirada cuntada dambiya lagu cabeyn waa lagu xanuunsanayaa hurdada oo ka tagta ooga gubasho jirka siiba cagaha oo lala intaas waa intaas waxaan kaga baxayaa erayo la yiraahdo eedo islaam bay la hadlaysa anigu biyaha ma bacabo adeer kaadi ayaan uga cararay biyihii eedda kale waxay tiri ma badajin karaba biyaha aad sheegaysid inta saas tiraahdo ma badajin karo waan ku yidhahda eedib shaaha ma cabtaa haa caanaha ma cabtaa haa haddii biyuhu meesha kuwaas maraan bay marayaan biyaha cab si kasta haddii la yeelo ilaahay amarkiis tacajiba qudura u dhimanaysa islaantaa laguma qancin karo biyaha dhuuntaaday mari karaan halkaa dhaafin halkaa dhaafin ayaan bay ku leedahay waa qof ilaahay meel u wado kow keliyuhu markii ay sameeyaan qashinkan aanu kaadinno markay sameeyaan inna gurigeenna markii qashinku ka bato waxaan dirsannaa gaarigii qashinka qaadi lahaa baan dirsannaa ogada gaarigaasaa ku jira waa biyaha keliyuhu maskaxda fariin u dirayaan waxay leeyihiin qashin intaa tire leeg oo noocaasaanu haynaa gaarigii qashinka qaadi jira hanu loo soo diro maskaxda ogadii saa u fiirinaysaa biyaha ku jira ogadaa biyaha ku jira waana ku filan yihiin intaanna waa dheeraad intaa dheeraadka ay u diraysaa oo qashinkii lagu fogeynayo qofka aan biyaha cabin maxaa dhacaya qofkaasi ilaahay amarkii maalin walba wuxuu ku kaajaa dayn buu ku kaajaa maalin walba dayn jirka laga go'o oo aan lagu celinayn qofkaasi ku kaajaa waa kuwa dhigaya kaadidaa gaduudan oo uraysa urka la dhigaya waa dayn buu ku kaajaa markii maskaxda fariintii loo diro oo jirkii fiiriso meeshan abaar baaba ka dhacday goojo biyaa maba taalo beerkoo laba cc keen ee xidmahaasoo keena hal cc eelo adna keen ogadii qallashay baa maskaxdii baryaysa si suntan ay u fogayso 20 cc baa la soo siinayaa oo cagaaran ninkaa dayn buu ku kaajaa waana badan yahay dadkeena xoolaha dhaqda 80% dayn bay ku kaajaan hadday magaalo joogaan iyo hadday miyi joogaan masiiba dadka daadoodu ay 60 xagga u dhaaftay qofka biyaha deynta u qaadanaya mataqaanaa biyihii jirkiisa ay ku noolaa oo isagoo awoodi kari waaya inuu jirkii biyageeyo qashinka lagaga fogeeyo qofkaasi waxaa ku dhaca xanuuno fara badan xanuuno aan macno lahayn baa ku dhaca macnay yeeshaanoo xanuun weyn oo macno lahayn noqdaan kuwa hore hadduu qabayo dhiikar iyo sonkor iyo kolestarool iyo hadduu qabayna waaba sii bulaalaya waxay gaarayaan meel aan daawo la siin karin mararkii qaarkood waa celinaa dadkaas waxaan rahnaa eedda kaxeeyo 3 beri biyo soo siiya maalintii litri bar soo siiya oo waxaad ku tiraahdaa eeddo iyo hooya kabo cabha ku oranayna haddii cabliha waa la dirirayaa cab lama yidhahda islaama waxaa ku tiraahdaa kabo hadday litriya bar maalin dhammayso kabo iyo catugo ku dhammayso
iyada inta kala wadanayso waa qaboobaysaa raaxo iyo caafimaad bay dareemaysaa waxaan kaga baxayaa raalliga ahaada maskaxda iyo biyo la'aanta waa meesha ugu dambaysa wey xanuun waxaa jira leh alzheimer waxaa hoos yimaada dementia uu keenaa alzheimer markuu xanuun yahay chemistryga maskaxda xumaatuu ka yimaadaa qofka catatab iyo luushaa ku dhaca marka alzheimerku markuu qofku ku dhaco dementia dhalaa oo qofku ilmihiisu kala garan waayo oo geeli wixii kala garan waayo oo maskaxdii ay tagto uu dhalaa innaga haatan waxayna ku cusub oo annagu haatan aanan welito aan cilmi baaris nagu filan aanan ka samaynin dadka catatabka horta ku dhaco 90% iyo wax dheeraad waa ragga wey dumarka uma badna dumarka raggaas markii taariikhdooda biyaha la raaco completely waa zero waxaa la saarayaa scan haddii la saaro waxaa la arkayaa maskaxdii suuqday oo meel soko timid oo yaraatay baa la arkaya laba sababood baa loo arki karaa mid waxa weeyaan qof sidiisa biyaha cabi jiray laakiin maskaxdan waa gaboobaysaa oo la deyn maayo waa inay tagtaa oo shuqdaa laakiin maxay qaadanaysaa waqti badan hadduu biyo cabo bay qaadanaysaa in laga adkaado in dhayahdo waad gabowday oo maaragtay la keeno hoos dadkoo dhanna maaha nin 110 jira arkaysa oo miirkiisa wax kala garanaya in 70 jira carruurtiisa xoolaha kala garanayna waa arkaysaa dad biyo cabo iyo dadan cabinba marka taas waxay keentay in hadda aanu qabno shaki badan biyo la'aantu inay door weyn ka ciyaarayso inay ragga ku soo degdegto in uu ka guuro garashadu inay ka guurto bay arrintu nagu sii maraysaa biyo la'aan inay garashadii la guurto ragga markay gaaraan 80 bay arrintuna ku sii maraysaa wax cilmi baaris aan ku cadeynayo hadda caawaan hayaa ma jiraan laakiin mustaqbalka insha Allah waxyaalaha ku cadeyn karo sidaas inay dhici karto way jiri kartaa daaduna waa keenaysaa dhinaceeday ka qaasidda xubnaha kale ay u gaboobayaan ama maskaxduna u gaboobaysaa aad iyo aad baan ku mahadinayaa litir oo biyo ah baa qofka bini aadanka maalinkii inuu cabo looga baahan yahay maxaa qiyaas ah ku cabi karaa qiyaasta marka la fiiriyo ama galaas ama caagadaha cabno sidee lagu qiyaasi karaa qofka inta uu rabo laga rabo inuu cabo biyaha iyo sida ugu fudud ugu cabi karo haddii ilaahay biyaha cabitaankooda marka hore dadku isku deegaan maaha looma sinaa oo waxa weeye de qofka ku nool meesha qabow ku nool oo baraf ka dhacayo biyuhu cabaya waa in kan meesha kulul ku noolna biyuhu cabaya waa in ninka gacanta ka shaqeeyo xamaaliga ama birta tuba ama biyuhu cabaya waa ka badan yihiin kan xafiiska fadhiya intuu cabahayo laakiin isku soo xooriyo waxay u baahan tahay adjustment personal oo qofku inuu asagu adjust gareeyo markii qofku uu asagu rabo inuu biyo cabo uusan biyaha ka maraan wuu qiyaasan karaa biyaha waxaad matalan ku qiyaastay qiyaasaad fara badan baa jira iyo noocyo badan oo iyadoo la fiirinayo qofkaana muxuu ka shaqeeyaa xafiis buu fadhiya kana muxuu ka shaqeeyaa xamaal wey gacanta ka shaqeeyaa oo makaani la fiirinayo daada la fiirinayo miisaanka la fiirinayo waxyaalo badan la fiirinayo waxaad ka soo qaadaa in hadda la yiraahdo 30 cc kuba dhufso miisaankaaga haddii aad tahay matalan 80 kiilo 30 haddii lagu dhufto waa 2 litir iyo 400 cc waay 100 haddaad tahayna waxa weeyaan waa 3 litir biyaha cabi kari haddaad tahay ilmo yar oo ah mataqaanaa 7 kiilaana 30 ku dhufso waa 210 cc biyaha u baahan tahay maalintii taasi miqyaas dadkoo dhan isticmaalo maaha laakiin waa miqyaas ka dhaxeeya duruufahaas kala duwan iyo cimilooyinkaas kala duwan qiyaas ka dhaxeeya weeye waxaanadna ogaataan qofka barafka jooga biyaha intuu cabi jiray buu cabaa sababtu waxa weeyaan jirkii iyo keliyihiiba u baahan kaadi badan buu yeelanayaa biyo badan buu luminayaa biyaha qofka barafka jooga waa inuu kabaa waxaa laga yaabaa dadkeenna qorraxda jooga dadka barafka jooga inay ka biyo badan yihiin inaad qadda jawi qabow aad joogtid macnaheedu maaha biyihii ilaa ka maarantay maaha jawi qabow baa joogtaa kaadidaada badanaysa marka kaadidaada badato waxaa loo baahay replacement loo baahay wixii baxay in jirkii lagu celiyo ayaa loo baahanaya marka biyuhu dhaqan inay noqdaan baa la rabaa dhaqan inay noqdaan hagee ka noqonayaan guriga ijtimaacu gurigu ka soo noolaada
guriga aabbaa jooga, hooyaa jooga, awowaa jooga, ayayaa joogta, carruur baa joogta, dad shaqaalaha jooga. dadkaasoo dhan waxaa la rabaa in lagu hanuuniyo cabbitaanka biyaha. anugu subax baan gabar yaroo aan awowo u ahay oo sannad iyo xoogaa jira aan subax jimco ah caagad yaroo biyaha la ag fadhiista. markay soo jeeraysaba biyahaan u dhiibaa waxaan waayey hal marah oo ilmahaas biyahaas u yidhaahdo ma rabo. hal marah u yidhahdo ilmahaas biyaha ma rabo. mar kasta waa ka baraysa, mar kasta waa ka baraysa. intii aan salaaddii la aadimin caagadu baaqa 350 waxay ahayd wax yar baa ku jiray waana sanad iyo 2 bilood ilma ah. bimacnaa biyuhu waa qariiso ku beera bini aadamku inay biyo badan cabbaan. waxyaatada iyo noloshii oo dhan baa biyihii ku jira. marka waxaa loo baahan yahay inaynu ka soo bilowno guriga, inaynu ka soo bilowno carruurteennu biyahay cabbayaan in la ogaado, hooyayaaba biyahay cabbayaan la ogaado, awoyaal dadka sariiraha saaranoo waaweyn baa ugu daran oo awoyaasha iyo baa ugu daran. biyaha markii loo keeno waxay odhanayaan dadka hayaa waxay ku yidhaahdaan ay soo dhoweynin iga fogee. kuwaas waxaanu samaynaa saalkaanu geynaa, soondaanu gelinaa, 2 beri baanu biyaynaa, biyo keliyaan ku shubnaa. qofkaas indhihii isku haystay isagoo dhan waa tegey, indhihii waa goteen, waa toosayaa, caqligiisi baa soo noqonaya. yacni yaa baad u dhimanaysaa biyuhu si u soo celiyaan. marka bal qiyaasta ugu dhow haddaanu sii adeegsan karno annagu fiireenna duruufteenna iyo shaqadeenna iyo cimilada intaba fiireenna haba iska ahaato 30 cc oo berkilo lagu dhufto insha allah. doctor waxaa kaloo dadku weydiinayaan biyaha miisaanka ma dhimaan mise waa kordhiyaan? biyuhu waxa ugu fiican weeye oo miisaanka lagu dhimo, laakiin waxaa jira dad hadday biyo cabbaan miisaankooda u badiyo waa tiro yar weeye. tirada badan oo biyaha sida rasmiga oo cabtaa miisaankooda waa dhima. biyuhu daawo ma ka yihiin cudurrada kolestaroolka, sokorta, dhiigkarka? ma lagu daaweyn karaa biyaha? waxay qayb ka noqonayaan oo saldhig u noqonayaan waxa qofka lagu daaweynayo. hadday biyo waayeen waxu shaqayn mahayaan. marka in jirkii biyo badan galaan oo biyahaas ka horreeyaan baa daawada qofka siinaysid inay natiijo keento iyo inaysan keenin ay ku xihan tahay. jir ooman dadka aanu celinno waayeelka aanu dhahno 3 beri biyaha la soo siiyo. run baan idiin sheegaya qaar waxaa jira aanu weyno inagu soo noqon waayo. maalin dambe aan qofkii aragnay waday islaantaasaba taas waday war islaantii markii biyihii cabtay bay biskooti maalintiina waa la siday tagtay qaloocan ma jirta. waa tabtaas waa aragna aan beenahan waa aragna. dadka haddaad biyaha badhaan xataa waxyaalo badan baa hagaagaya. caafimaadka guud oo dhan aynu raadinayno waxaa salka wuxuu ku hayaa waxa weeyaan waa biyaha weeye. habeenkii way cabbi karaan haddii aysan ka baqaynin inay hurdada ka rasheeyaan. gabagabadaan ku dhownahay su-aalaha ugu dambeeya waxaa ka mid ah qof baa soo qoray wuxuu leeyahay biyahan dabiiciga oo tuubada in la cabo iyo kuwa caagadaha in la cabo keebaa fiican, kuwaa fadilaysaa bay leeyihiin oo ugu fiican oo tayadoo la tijaabiyey. kule malaha waa shirkado badan iyo hawlo kale geli doontaa. marka bal biyaha keebaa fiican kuwan caagadahan hor yeela laftirkooda si ay u kala fiican yihiin? ma kuwa dabiiciga tuubada fiican mise kuwan? anigu waxaan ku soo koray hormuda hoosteeda guri ku yaallaan ku soo koray. waan ku dhashay ku soo koray. ceel waxaan ka cabbi jiray 6 mitir ah oo dacas googo'an ka buuxo. musqushuna waa u dhoweeday waxay u jidhay 5 mitir iyo bar bay u jidhay musqushuna. walow waagaas lama aqoonin ceelkii musqusha in ceelku meel sare ku yaallo musqushuna hooseyso lama aqoon. saasaa musqushuna ahayd, ceelkuna halkaan oo kale u yaal. wax allaalihi musqusha gala ceelka geli jireen. waa dambaan ogaa. ciyaal baan nahay markaanu qubaysanayno mid baa dalowga daraya shalay laxba kugu siinaya sidaasaad odhanaysaa waa istaagi jira. jirka iyagoo dhan wuxuu noqon jiray milix. ma ciyaari karno inaan iska jafno oona laka jafa mooyaane ma ciyaari karno. anuu ceelkaasaan ku soo koray. cuntadaas aan ku karsan jiray, qubayska asagoo ahaa, biyahan cabnaana asaguu ahaa. arrintan dhagaxa keliyaha sameeya iyo taasi cilaaqaad ma leeyihin. yani halka hadday soo istaagaan 100 qof oo Maraykan ah
intee qof baa maaragtay keliyahooda dhagax ku jira dad badan baa dhagax ku jira laakiin iyaga dhagaxa ku jira keenna waa weyn oo koray oo laga warqabin ma aha waa mid yar weyn marka la ogaaday weyn markaas laga daaweynaya laakiin tiradaasi kama yara tirada annaga dhagaxunta ku jira kama yara taa waxay daliil u tahay biyaha cabaysid weer weeye iyo biyo nadiif weeye kuma xirra waxay ku xiran tahay abuurista ku xiran tahay dhagax samayntu haddii dhagax la samaynayo anaa samayn lahaa waayo milix baan cabbi jiray aniga walaalahay waxaan raadiyey xaafad carbeed la yiraahdo dadka ku noolaa dad asnaqaano ehelay waa raadiyey reer leh dhagax leh waxaanu helay reer la yiraahdo reer maxamed xaashi oo guriga hortiisa deganaa waanu helay reer dhagax leh waanu helay iyaguna waxay ka keeneen xagga reer abtiga ka keeneen marka dhagaxu haddii aadan u samaysan